hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed, dardargelinta adeegyada bulshada, arrimaha bini'aadanimada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta wada shaqaynta hay'adaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. golaha wasiirada ayaa warbixino ka dhageystay wasaaradaha amniga, gargaarka, xanaanada xoolaha, arrimaha gudaha iyagoo ka wada hadlay qorshayaasha horumarineed ee socdo iyo sidii loo xoojin lahaa adeegyada loo fidiyay bulshada reer Koonfur Galbeed. Hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa booriyay xubnaha golaha wasiirada in ay laba jibaaraan dadaalada lagu horumarinayo nabadda, xasiloonida iyo adeegyada bulshada si shacabka reer Koonfur Galbeed u helaan adeeg hufan oo tayo leh. maanta oo khamiisa taariikhduna ay tahay 22 bisha May 2026 sida caadada ahayd waxaa shir isugu yimid golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. shirkaasi oo uu furay hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha amniga. waxaa kaloo ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. marka ugu horeysa talaadadii la soo dhaafay waxaa magaalada Buur-Hakaba gaaray wafdi ka socda hay'adaha caalamiga ah iyo xubno beesha caalamka ah, hay'adda Sodma iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka, ayagoo halkaasi u kuurgalay xaaladda ay ku sugan tahay degmada Buur-Hakaba oo ah degmada ugu badan oo ay hoostagaan tuulooyin kor u dhaafay 300 oo tuulo. degmadaasi baryahan riboodada iyo warbixinada ka imanayay waxay tilmaamayeen in xaalado bini'aadanimo ay halkaasi ka jiraan. marka si arintaasi loo xaqiijiyo ayuu wasiirka iyo wafdigaasi meesha tageen. waxaa halkaasina ay dadkii taagta darnaa ama dadkii tabarta yaraa oo jilicsanaa ku noolaa degmada Buur-Hakaba loo qaybiyay 2500 oo qoys raashin noocyadiisa kala duwan ah. sidoo kalena waxay kormeer iyo qiimeyn ku sameeyeen xaaladda guud ahaan degmada Buur-Hakaba iyagoo maaragtay hay'adihii iyo wakiiladii beesha caalamka ee la socday wasiirka ay qaateen warbixinada inay ka dhageysteen gudoomiyaha degmada Buur-Hakaba iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa maamulka degmada. sidoo kale wasaaradda gargaarka waxay maalmaha soo socda ay gaari doontaa ama ay gargaar iyo qiimeynba ugu tagi doontaa degmooyinka Walaweyn iyo Dinsoor. sidoo kale arrimaha shirka looga hadlo waxaa ka mid ah wasiirka xanaanada xoolaha oo ka hadlay inay soo dhowdahay maalmihii udxiyada ciidii barakeysneed ee Carafa. sidaa darteed waxaa dhulka Soomaalida guud ahaan gaar ahaan Koonfur Galbeed ku soo batay in la gowraco xoolaha dhadiga ah taasoo runtii dhib ku ah nolosha iyo mustaqbalka shacabka ku nool Koonfur Galbeed. waxaa la isla fiiriyay oo la isla arkay wasiirkana soo jeediyay in dadka looga naseexayo loogana caqli celiyo loona jeediyo waanooyin iyo digniino ku saabsan in laga waantoobo gowraca xoolaha dhadiga ah maadaama ay dhibaato weyn ku tahay mustaqbalka dadka ku nool guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya. sida awgeed wasiirka xanaanada xoolaha iyo golaha wasiirada iyo hogaamiyaha waxay isla qireen dhibaatada ay leedahay in la gowraco xoolaha dhadiga ah in ku leedahay nolosha mustaqbalka iyo jiritaanka dadka Koonfur Galbeed. sida darteed shirkadaha ka howlgala kana shaqeeya xoolaha ama gowraca maalmaha ciidda Carafo udxiyadaasi inay inta tabartooda ah ay ka waantoobaan kana joogsadaan gowraca xoolaha dhadiga ah. sidoo kale waxaa laga hadlay arrimaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka warbixisay xaaladaha degmooyinka ay ka kooban tahay guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. xaaladuna waa mid degan.